Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkani maanta sida shaashada idinkaaga muuqato wuxuu ku saabsan yahay sawir editing-ka. Haddaba waxaan sameyn doonaa maanta sawirka idinkaaga muuqdo shaashada. Intaan muuqaalkan ku guda jiro waxyaabaha aan isticmaalo waxaan idin soo dhigayaa linkiga description-ka ee kala soo dega. Waxaan isticmaalayaa horta application-ka loo yaqaano PicArt si aan ugu edit gareeyo sawirkan. Markaad soo furatid kadib waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay draw markaad taabatid kadib waxaa ku soo baxayo laba option oo wuxuu ku kala leeyahay draw iyo color. Kadib waxaad sii dooranaysaa draw. Markuu halkaani ku keeno kadib waxaad taabanaysaa icon-kan oo u eg sida gallery-ga ama sawirka oo kale ayaad taabanaysaa. Markaad taabatid kadib wuxuu ku soo bandhigayaa laba option oo kala ah photo iyo sticker. Kadib waxaad leedahay photo. Kadib waxaad soo dooranaysaa sawirka aad ugu talagashay in aad edit gareysid. Kadib position-kiisa ayaad saxaysaa sawirka. Haddii aad u baahan tahay qaabka background-ka loogu tirtiro sawirka waxaa jiro video hore oo aan ku sharxeynay sida loogu tirtiro background-ka sawirka. Waxaan idin soo dhigayaa qaybta kore ee ka daawo haddii aad u baahan tahay. Markaad position-kiisa sawirka aad saxdid kadib waxaad tagaysaa saddexdan layer oo saaran oo qaybta sare ah ayaa taabanaysaa. Kadib waxaad taabanaysaa halkaani plus-ka ay ku qoran tahay. Markaad taabatid wuxuu ku soo bandhigayaa laba option photo layer iyo empty layer. Waxaad dooranaysaa marka empty layer oo waxaad leedahay layer ever ah ii samey. Mar walbo aad wax ku soo daraysid halkaani markaad joogtid waa in aad mar walba aad furataa empty layer. Waxaan saas ku leeyahay wax kale maahan adigoo oo layer-ka hore oo sawirka aad soo gelisay taagan haddii aad wax kale aad ku soo dartid macnaheedu waxay la mid tahay sawirka iyo waxaas kale aad ku soo dartay in ay isku mid yihiin oo hal position ay isla joogayaan. Marka si ay taas u dhicin ayaad waxaad leedahay empty layer ayaad ku soo daraysaa. Kadib wuxuu u fahmayaa marka in aad waxaad ku soo dartay iyo wixii hore aad u haysatay in ay laba wax kala yihiin oo macnaha kala duwan yihiin ayuu fahmayaa. Marka mar waliba xasuusnaa marka empty layer inaad taabatid oo soo furatid. Kadib waxaan taabanayaa icon-ka sawirka ama gallery-ga u eg. Waxaan ka sii leeyahay photo. Kadib waxaan raba ayaan ku soo darsanayaa. Haddii aad u baahan tahay marka waxyaabahan aan isticmaalayo intaan ku guda jiro editing-ka waxaan ku soo dhigayaa description-ka ee kala soo deg. Kadib saddexda layer ayaa taabanayaa oo qaybta sare ah. Waxaan taabanayaa marka calaamadan arrow-ga. Waxaan ka sii dooranayaa kadib screen. Kadib sawirka aan ku soo daray ayaa position-kiisa ayaan saxaa.
saxda mar walba xasuusnaaw marka inaad taabatid calaamadda saxda si aad u save gareysid in aad shaqadaasi qabatay. marka BRL2 waxaad qiyaasaysaa marka sawirkaaga inta uu u baahan yahay. sawirada macnaha isku mid maahan, way kala duwan yihiin. waad aragtaa marka sida aan ka dhignay sawirka. haddii aad ka heshay marka muuqaalkani, fadlan ha iloobin inaad channelka subscribe tiraadid, gambaleelkana furo si aysan ku dhaafin muuqaaladan xiga. muuqaalkana sii share garee oo asxaabtaada kala gaarsii. mahadsanid.